صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة والأخوات meel kastoo aad dunida ka joogtaanba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. kusoo dhowaada barnaamijkii aynu ugu magac darnay daawada ramadaanka. xalqadan ama qeybtani waa qeybtii labaad. waxaanan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ku qaadaa dhigi doonaa inaan ka jawaabno hal su-aashaasoo ah soonka. waxaynu soo sheegnay inuu u qeybsamo laba qeybood, waajib iyo wa mustaxabun. soon sunno ah, mid waajiba iyo mid sunno ah. soonka sunnada ah ayaynu insha allahu xalqadani iyo qeybihiisa kala duwan ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. min nicam illaahi caza wajalla, nicmooyinka ilaahay waxaa ka mid ah, raxmadda ilaahay waxaa ka mid ah inuu ummaddan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo addoommadiisa uu ku galladaystay acmaal tatawuc ah, acmaal sunno ah oo aan waajib ahayn, laakiin xagga shakliga u dhiganta acmaashii waajibka ahayd. xikmadduna waxaa weeye inuu allah subxaanahu wa tacaala ummaddan ajir, darajo sare iyo inuu siiyo thawaab qiimo badan, iyo sidoo kale wax alla wixii khalal ah ee ku yimid faradkii iyo waajibkii in loogu kabo. acmaasha waxaa ka mid ah soonka sunnada ah. sunno waxaa la yidhaahdaa shay haddaad ka tagto aanan cidna waxba kuu dirsanayn, ku dambaabi maysid, maxaad oga tagtayna cidna kugu dagaali mayso. laakiin haddii aad samayso ajir iyo thawaab fara badan ayaad insha allahu tabaaraka wa tacaala aada helaysaa. soonka noocaasoo kale ah wuu badan yahay. marka waxaan ku bilaabayaa siyaamu yowmi carafa ligayri alxaaj. maalinta carafe ee bisha dilxija ay 9 tahay in uu qofka soomo, laakiin waa qofka aan xaajiga ahayn. maalinka carafe la taagan yahay xujaydu ma soonna, laakiin dadka aan xujayda ahayn maalintaa iyada ah soonkooda waa sunna mu'akada oo aada u qiimo badan, ajir badanna laga helayo. waxaa daliil u ah xadiidkii abi qataada radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam siyaamu yowmi carafa أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وحسوب بنوه ليه صلى الله عليه وسلم مالنت عرفه صون كيدو وحو أجر فربضا بالغو هلا إلهي باكا أجر سينيا وحانا اللغو دافا دنبية سنة كي تغي iyo dembiyada sanadka soo socda. 2 sano dembigood baa lagu dhaafaa. xadiidka imaamu muslim ayaa fii saxiixii ku soo saaray. sidaynu soo sheegnayna waa qofka aan xaajiga ahayn. qofka marka xaajiga isagu inuu afuro ayaa waajib ku ah. soonka labaad waxaa weeye sawmu yowmi caashuraa. waa maalinta 10aad ee bisha muxaram. maalinka ay 10ka tahay in la soomo, iyo weliba maalinta 9ka ah ayaa iyadana sunno ah. nabigaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can sawmi yowmi caashuraa baa la weydiiyey.
wuxuu yidhi marka axtasibu cala allahi an yukafira alsanata alatii qablahu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka filayaa in soonka maalinkaasi aan soomay lagu dhaafo dembiga sanadkii tegay. marka carafo la darajo ma aha, laakiin iyadana ajir fara badan bay leedahay. rawaahu muslim ayaa xadiidkaana soo saaray. waxaa sunno ah in maalinta sagaalaadna la soomo liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam baana daliil u ah hadalkii nabiga ee uu yidhi nabiga lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna taasic, haddii aan sanadka soo socda ilaahay i gaadhsiiyo maalinta sagaalaad waan soomi doonaa. soonka sunnada ah kan saddexaad ama qodobka saddexaad waxaa weeye sawmu lithnayni waalkhamiisi min kulli isbuuc. usbuuc kasta maalinta isniinta ah iyo maalinta khamiista ah in la soomo. xadiidkii caaisha ayaana daliil u ah. nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, caaisha waxay leedahay cafwan, kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam yataxaraa siyaama alithnayni waalkhamiis. wuxuu aada ugu dadaali jiray nabigu soonka maalinta isniinta ah iyo maalinta khamiista. imaamu axmed iyo tirmidi ayaa xadiidkaasna soo saaray. waxaa kaloo daliil u ah isniinta iyo khamiista soonkooda. waxaa daliil u ah qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam, tucradu alacmaalu yowma alithnayni waalkhamiisi fauxibu an yurfaca camalii wa ana saa'im, ayuu leeyahy nabigu sala allahu calayhi wasalam. acmaasha waxaa la bandhigaa oo la kor yeelaa maalinta isniinta iyo maalinta khamiista, waxaanan jeclahay in camalkayga la kor yeelo aniga oo sooman. imaamu tirmidi iyo nisaa'i iyo abu daa'uud ayaa xadiidkaasna soo saaray. midka afraad waxaa weeye siyaamu 3 ayaamin min kulli shahrin. bil walba in 3 maalmood laga soomo. bil walba 3 maalmood in laga soomo. xadiidkii cabdullaahi ibnu camar baana daliil u ah. nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, sum min ashahri 3 ayaam. bisha ka soon 3 maalmood. fa ina alxasanata bicashri amhaaliha. xasanadaasi waxay la mid tahay 10 iyadoo kale ah. wadalika siyaamu dahri. zamanka oo dhan ama sanadka oo dhan adiga oo soomay ayay markaa la mid tahay. maxaa yeele 12 bilood oo bil walba 3 laga soomay waa 36. sanadkanu maalmihiisu waa 360 maalmood. xadiidkaasna imaamu bukhaari ayaa soo saaray. abaa hurayrana waxaa laga wariyey in uu yidhi radia allahu canhu, qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, inuu abaa hureyre yidhi, awsaanii khaliilii bihalaatin. saaxiibkay oo uu nabi muxamed ka wada calayhi salaatu wasalaam wuxuu ii dardaarmay 3. siyaamu 3 ayaamin min kulli shahrin. bil walba inaan 3 maalmood ka soomo. warakcatay duxaa, iyo sunnada duxada oo 2 ragcadood barqadii aan tukado maalin walba. wa an uutira qabla an anaam, iyo in aan witirka tukado oon salaad keli aho 1 ragcada aan ku khatimo inta aanan seexanin. rawaahu lbukhaariy. riwaayaad kale oo waxaa jira sheegaya in 3 maalmood ee bil walba laga soomayo ay tahay 3 maalmood ee caddada 13, 14 iyo 15. soonka shanaad ee sunnada ah waxaa weeye sawmu yowmin iyo wa iftaaru yowmin. in maalinna la soomo maalinna la afuro. liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam baana daliil wa afdalu siyaami siyaamu daa'uud calayhi salaam, kaana yasuumu yowman wa yuftiru yowman. imaamu bukhaari baa xadiidkaasi soo saaray. soon waxaa u fadli badan soonka nabiyullaahi daa'uud. maalinna wuu soomi jiray, maalinna wuu afuri jiray. soonka 6aad ee sunnada ah waxaa weeye siyaamu shahri illaahi almuxaram. bisha muxaram soonkeeda weeye. xadiidkii abaa hureyra radia allahu canhu baana daliil u ah. qaala abaa hureyre wuxuu yidhi, qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilahi wuxuu yidhi, afdalu siyaami, soon waxaa u fadli badan bacda ramadaana shahru llahi almuxaram. soonka la soomo bisha muxaram. imaamu muslim baana xadiidkaas soo saaray.
كتضباطنا وحو يا صيام 9 ذي الحجة 9 ذي الحجة سقال كم المود ذي الحجة بش عرفة سقال كم المود الرئيسة maalinta sagaalaad ee carafada ah inay soon tahay waan soo sheegnay 8 maalmood ee kale in la soomana iyadana way fiican tahay maxaa yeelay soonku wuxuu ka mid yahay al-a'maal as-saaliha a'maasha wanaagsan buu ka mid yahay xadiidkii Abu Hurayrana radiyallahu anhu wa ardaa wuxuu nabigu xadiid ku yiri sallallahu alayhi wa sallam ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr عمل صالح أو لا سميه أو كخير بدن متشرو عمل كلا سميه طبعا كمال مود بشهد الحج أو الرئيسة إمام البخاري بحديث كاسي صاري صون كنا ده من أعماش ونكسب بكم بديها مركا وإن سديد دمال مود كلا صونك لبديا أيها الأحبة في الله هل كاسي وحين أقول ماضي قيبتي لباد برنامج كني داودا صونكا انت اينو حلقتك لوغا كلمي دونو اترككم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صونكي الله نسمات بتشي